adigoo wadada maraya isla markaana gaari wata inta askartii wadada ilaalinaysay ay ku istaajisay kadibna makaa kala carareen oo makaa yaaceen waa dhibka maanta ka taagan dalka Shiinaha waxaan idinla wadaagi doonaa hadduu Allaha awood leh ogolaado muuqaal yar oo ka turjumaya dhibka haysta dadka Shiinaha inta aanan muuqaalkan u gudagelin fadlan hadiiba ay tahay markii kuugu horeysay ee aad aragto channelka Dulmidi Tube ha ka ilaawin in aad subscribe saarato oo aadna gambaleelka u furato si aad ugu mid noqoto asxaabta sida joogtada ah ugu taxan channelkan Dulmidi Tube mahadsanid kuwani waa kolonyo ciidanka caafimaadka ah oo si xil dheeri ah loogu tababaray la dagaalanka cudur aan la arkayn oo waxa uu yahayna aanan la aqoon kaasoo dunidii oo dhan ka qaylisiyay Shiiniina xira yar ama xeendam yar ku ooday kaasoo waliba u diiday in ay u soo baxaan suuqyada ama wadooyinka ciidankan caafimaadka waxa ay taagan yihiin mid ka mid ah wadooyinka waaweyn ee dalka Shiinaha iyagoona dadka ka baaraya caabuqa loo yaqaano coronavirus askarigan wuxuu istaajiyay gaarigan waxa uu la soo baxay qalabka lagu ogaado cudurka coronavirus isagoona dareewalka gaariga madaxa ka saaraya si uu u ogaado in uu qabo cudurkan iyo in kale nasiib wanaag ninkan waa laga helay cudurka askarigii ka hubinayay dareewalka cudurka ayaa iskaga soo dhaqaaqay xaggii dareewalka isagoona la hadlaya saaxiibadii una sheegaya in uu ninkan gaariga wada uu qabo cudurka isla markiiba laba ka mid ah askarta loo carbiyay la dagaalanka caabuqa ayaa u soo kacay dhankii dareewalka labadan askari mid ka mid ah ayaa gacanta waxa uu ku wataa qalabka dhagaxaanta la iskaga difaaco marka uu mudaharaad rabshado wato uu dhaco balse hadda waxa uu sitaa qalabkan ama base uu isticmaalaya in uu iskaga difaaco ninkan qaba cudurka si uuna u taaban jirkiisa ama base aanu ugu neefsan way la hadlayaan oo waxa ay leeyihiin ka soo deg gaariga iyagoona ka cabsanaya in ay xaggiisa u kacaan balse waa uu diiday in uu ka soo dego oo waxa uu isku dayay in uu baxsado laakiin maxaa ku dhacay gaari loogu talagalay gargaarka degdega ah ayaa markiiba wadada jaray hadda gaarigii ayuu ka soo degay askartiina way ka kala cararaysaa isagana waxa uu isku dayayaa in uu hoosta ka galo askarta maradii afka ugu xirneed ayuu iska furay isla markiiba waxaa xagga dambe ugu yimid ciidan waxayna madaxa u geliyeen shabag u samaysan sida kan kalluunka lagu dabto oo kale waqti xaadirkan ciidankii waxa ay isku diyaarinayaan la dagaalanka hawo aan la arkayn oo ah neeftii dareewalkii gaariga waday waxayna buufinayaan caagado ay ka buuxaan naqas waqti xaadirkanna askartii ayaa loo soo jeestay si iyagana loogu buufiyo neeftii dareewalka si aanay iyaguna u qaadin cudurkan xitaa gaarigii ayaa la buufiyey mid ka mid ah askarta ilaalada wadada ayaa isku dayaya in uu gaariga wadada ka kaxeeyo